kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka wali nagala socotaan waa telefishinka Lega TV wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha bariga dhexe ayaa maanta eegi doona iyadoo markaasi aynu ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo sidoo kale xogta ku aadan Hizbullah hoggaanka cusub ee dhawaan ay yeelatay balse intaas oo dhan waxa ka soo horeynaya war degdeg ah oo hadda soo gaaray ayaa sheegaya in magaalada Kismaayo uu ka socdo kulamo markaasi siyaasadeed oo ay markaasi wada qaadanayaan siyaasiyiinta markaasi ku xulufada ah Axmed Madoobe oo muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya hardan siyaasadeed kula jiray sida ay noo sheegeen ila wareediyo markaasi ku sugan magaalada ayaa sheegaya in Axmed Madoobe oo hadda wado abaabulkii u dambeeyay musharaxiinta ayaa markaasi waxa la soo sheegayaa gaaray halkaasi inay yihiin kuwa kooban iyagu laftirkoodana ay wali si xor ah warbaahinta ula hadli karin Axmed Madoobe ayaa markaasi lagu eedeynaya inuu hadda markaasi isagu si toos ah u fargelinayo arrimaha doorashooyinka oo la filayo in dhawaan ay dhacdo haddaba xogahaasi wixii ku soo kordhay waan eegi doonaa markaana Lega TV isha wararka xog dhaba xaajaruna kala soo wararkii u dambeeyay Lega TV wanaagsan daawadayaal ciidanka Yuhuudda waxa ay ku leeyanayaan koonfurta wadanka Lubnaan xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo saraakiishiisa ammaanka ay isku dubridayaan weerar argoosi ah oo ay doonayaan in ay ku qaadaan Iiraan sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iiliinta ah shalay oo kaliya 12 askari ayay Yuhuuddu qiratay in looga dilay koonfurta Israa'iil waa koonfurta dalkaasi Lubnaan markii ciidanka Israa'iil oo isku dayay in ay ka gudbaan xadka ay la kulmeen dagaalyahano dhaqdhaqaaqa Hizbullah ka tirsan oo dhulka hoostiisa ka soo baxay kuwaas oo weerar gaadmo ah ku qaaday isla markaana halkaas askar fara badan ku laayay afayeen u hadlay ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in 12 askari ay goobta kaga dhinteen isku dhacyo dhexmaray ciidankooda iyo kuwa dhaqdhaqaaqa Hizbullah sidoo kalena gawaari dagaal halkaas looga gubay isaga oo yiri qiimo badan ayaa nooga baxay dagaalkii koonfurta Lubnaan waxa ay soo baxday weerarkaasi markii ciidanka Israa'iil oo isku dayay in ay helaan godad dhulka hoostiisa ku yaala iyaga oo baaris wada ay la kulmeen ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Hizbullah oo dhulka hoostiisa ka soo baxay kuwaas oo qasaarihii ugu xoogganaa ee maalin qura soo gaara la kulansiiyay ciidanka Yuhuudda xilli diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeymo ka wadeen koonfurta magaalada Beirut goob ay ku tuhmayaan in ay Hizbullah dhaqdhaqaaq ku leedahay amaba ay sali ku leedahay ilaa hadda waxaa la hadalhayaa geerida hogaamiyihii bedelay Sheekh Xasan Nasrallah oo lagu magacaabo Safiyuddin kaas oo la rumaysan yahay in Israa'iil ay duqeyn ku dishay militariga Israa'iilna ay hore u sheegeen in ay hogaamiyahaasi dileen waxaa la isweydiinaya waxaa ka mid ah maxay la aamusan tahay Xamaas ma waxa ay doonaysaa in maalinta 7 Oktoobar ee soo aadan ay qaado weerar kale oo culus muddo ku dhow 2 toddobaad dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaan geysanin weeraradii joogtada ahaa ee cuslaa ee ka dhanka ahaa ciidamada Yuhuudda ee burburiyay magaalada Gaza ha yeeshee dhaqdhaqaaqa Xamaas ayay Israa'iil tuhmaysaa in ay damacsan yihiin weerar kale oo weyn xalay ciidanka Israa'iil ayaa dhammaan furimaha oo ka dagaalamaya heegan xooggan la geliyay sidoo kale diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa hawada ku bariyay xalay iyaga oo ka feejigan weeraro iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhici kara Iiraan ayaa sidoo kale ku jirta heegan buuxa iyadoo ay tuhun ka qabto in suurtagalnimada Israa'iil ay weerar ku qaadi karto sanad guurida koowaad ee weerarkii 7 Oktoobar ee dhaliyay dagaalka halka sano jirsaday Iiraan waxa ay hore u sheegtay in talaabo kasta oo ay qaado Israa'iil ay ka dhalan doonto burburkeeda iyo in mar dambe aanay Israa'iil sii jiri doonin shalay waxa gaaray magaalada Tel Aviv ee xarunta maamulka Yuhuudda taliyaha taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee gobolka bariga dhexe waxa uu qayb ka yahay qorshaha ay Israa'iil ku doonayso in ay kaga argoosato Iiraan yeeshee wadamada Carabta ayaa isku raacay in aanay hawadooda isticmaalin Israa'iil markii madaxweynaha Iiraaniyiinta uu booqasho ku tagay wadanka Qatar magaaladiisa Dooxa halkaasna kula kulmay qaar ka mid ah hogaamiyaasha Carabta una sheegay in wadan kasta oo Carabeed oo hawadiisa ay adeegsato Israa'iil si loo duqeeyo Iiraan ay taasi macnaheedu tahay in ay Carabta qayb ka yihiin dagaalka lana safteen Israa'iil
hogaamiyaasha khaliijka carabta bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xaaladda u dhexeysa Israa'iil iyo Iiraan ay dhexdhexaad ka yihiin islamarkaana aan hawadooda la isticmaali karin ogolaanshana aanay u siin doonin Israa'iil in ay hawadooda isticmaasho. yeeshee waxaa la rumaysan yahay in Israa'iil ay ka fakarayso ama ay difaac uga jirto weeraro waaweyn oo uga furan ilaa dhowr aag. buuraleyda Golan Heights ayaa la sheegayaa in ay afkeeda hore joogaan ilaa 40,000 oo ciidamo ay diyaarisay Syria, Iiraan iyo sidoo kale dowladda Ciraaq. waxaana la sheegayaa in ciidamadaas ay qorshahoodu yahay qabashada buuraha Golan Heights haddii uu bilowdo dagaal weyne dhulka ah, iyadoo ciidamo intaa ka badan la tuhmayo in ay ku jiraan dhinaca gudaha waddanka Lebanon, gaar ahaan koonfurta oo ay dagaalo qaraari ka dhaceen maalmihii la soo dhaafay, iyadoo inta badan ciidamada Xisbullah ay ku sugan yihiin dhulka hoostiisa. markasta oo ay dhaqdhaqaaq sameeyaan ciidamada Yuhuudna ay la kulmayaan weeraro aad u culus oo khasaare xoog leh ka soo gaarayo. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil iyo kuwa helikobtarada ah ayaa dhaawacyada iyo meydadka askarta daabulaya muddo saacado ah, inkastoo Israa'iil ay qiratay dhimashada 12 askari. haddana waxaa la rumaysan yahay sida ay Xisbullah iyo sidoo kale dadkii goobjoogayaasha ahaba xaqiijiyeen in khasaaraha Yuhuudda ka soo gaaray duulaankii koonfurta Lebanon ee shalay dhacay uu ka badan yahay intaas, aadna uga xoog badan yahay, iyagoo sheegay in haddii ay khasaaruhu intaa yihiin oo keliya ay hal diyaarad ku filan tahay, laakiin muddo saacado ah ay diyaaradaha helikobteriska ee dhaawacyada qaada isaga daba noqonayeen goobta, iyadoo askar aad u fara badanna sidoo kale dhaawac xoog leh uu soo gaaray.